dowlaha wasaaradda ganacsiga ee Somaliland mudane Maxamuud Warsame oo ka qayb galay shirkii dhalinyarada ururka Somaliland ee Soonyo waxa uu madaxweynaha Somaliland ugu mahad celiyay isla markaasina uu faahfaahin ka bixiyay muddooyinkii ay talada dalka hayay madaxweyne Siilaanyo inuu xilal tiro badan ku taxay dhalinyarada Somaliland isagoo tilmaamay inuu guud ahaanba dabarka ka jaray in siyaasadda Somaliland ay ka qayb qaataan dhalinyartu dowlaha wasaaraddaasi ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay inay dhalinyaradu guud ahaanba ay mideeyaan xoogooda muruqooda iyo waliba hadafkooda dhinaca siyaasadda isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri inagoo intan oo dhalinyaro ay isu keentay oo ay kulmisay dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo aad iyo aad baan Soonyo hambalyeynaya wana ku bogaadinaya shaqada ay u hayso dhalinyarada reer Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga ayaa waxa uu ka mid yahay dhalinyarta uu magacaabay madaxweyne Axmed Siilaanyo muddadii uu talada dalka hayay waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka Space Channel magaalada Hargeysa.